sax miyay tahay islaamka dhexdiisa in inta culimo ay urursato magac gaara ay la baxdo taas waa taa magac gaara ay la baxdo haddii ay se sax tahay adigu sheekh dirir ahaan firqadee ku jirtaa ma ictisaam baa tahay ma salaf saalix baa tahay ma qaadiriyaa tahay arrinta kale ee wariye xasan ee la xidhiidha xagga culimada iyo firqadahooda horta marka hore waxaa xusid mudan dee culimadu cerka kamay soo dhicine bulshadun bay ka mid yihiin oo waxaa la yidhaha alinsaanu ibnu bay'ati dad muslimiin oo diinta ugu baaqaya dadka ha noqdaan waxaase aynu ogsoonnahay dadku haddii marka ay wax samaysanayaan ay u samaysanayaan inay diinta ku xoojiyaan waxay soo geli kartaa baabkii ahaa tacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alitmi walcudwaan maalan koox wareeyaalaba isku urursateen waxaa ku heshiiseen diinta aynu waxu tarna iyo dalka waxaasoo khayrle aynu baahinno waxaasoo sharana aynu joojinno barnaamijkaas iyo guddidaana aynu samaysanno bajadkaana aynu samaysanno xafiiskaana aynu samaysanno waxaa iska macruufa camalka noocaasee jamaacigae isugu timaadeen inuu ka taya roonaan karo camalka qof gurihi uu qabanayo dee ururaa jira bulsho ururadaa bulshada waxaa loo sameeyaa si wixii aynu doonayno diin iyo dad iyo dalba loogu horumariyo haddii arrintu ay sidaa tahay oo dadkan isku yimidee diin ahaan isugu yimi dacwadii iyo diinta islaamka aan waxu tarna ay isugu yimaadeen waa sax oo aayaddaasaa sheegaysa haddii laakiin arrintu ay tahay wax kale ay ku hoos jiraan ama maslaxad iyo manfacad lagu raadsanayo ama cid kale lagaga aarsanayo ama dadka muslimiinta qaarna lagu fogeynayo qaarna lagu soo dhoweynayo taasi sax maaha markaa cid waliba dee way ismaqlaysaaye jawaabta caamka ah ayuunbaa laga faa'iidaysan karaya aniga haddii aad i weydiisayna idinkumaan idinkala mid ahayo muslimiinta soomaaliyeed unbaan ka mid ahay ee kooxna kuma jiro